barqa wanaagsan saaxiibayaal waxaan ahay Salmaan Cadaala waxaad ku soo dhawaadaan warbixinadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha balse marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan oo aad sii share gareysaan sidoo kale aad ku soo biirtaan boggan Salmaan Cadaala mahadsanidin Ricardo Calafiori ayaa dhaawac halis ah ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa qaranka Italy daafaca kooxda Arsenal Ricardo Calafiori ayaa u muuqday mid uu soo gaaray dhaawac halis ah kulankii xulka Italy ka badiyay xulka Faransiiska kulan ka tirsanaa tartanka UEFA Nations League kulan xalay ka dhacay Paris ayuu xidiga reer Italy ka qayb qaatay kulankii xulkiisa Italy uu ka adkaaday xulka qaranka Faransiiska Ricardo Calafiori ayaa ku bilowday ciyaarta laakiin waxa uu dhaawac ka soo gaaray guraanta xidiga xagaagan ku soo biiray kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana u muuqday mid xanuun xoogan u dareemaya waxaana uu walwal ku abuuray kooxda Arsenal Ricardo Calafiori ayaa ciyaarta laga saaray kadib markii uu sii wadan gari waayay ciyaarta waxaana haatan laga warsugayaa warbixinta xaaladda dhaawac xidiga ay ka soo saaraan dhaqaatiirta xulka qaranka Talyaaniga kooxda Arsenal ayaana marka xulalka laga laabto waxay la ciyaari doontaa kulanka loogu magac daray North London Derby kooxda kubadda cagta Tottenham waxaana kulankaasi kooxda Arsenal ka maqnaanaya Declan Rice kaasi oo roos qaaday kulankii Arsenal barbaraha ay la gashay kooxda kubadda cagta Brighton dhanka kale laacibka xulka qaranka Ingiriiska Harry Kane ayaa sheegay inuu xambaarsan yahay dhaawacii ka soo gaaray finalka Euro ee 2024 wariyaanka Bayern Munich ayaa Ingiriiska u safan doona kulankiisii 99aad markay wajahayaan Republic of Ireland caawa ciyaar ka dhici doonta garoonka FIFA Stadium magaalada Dublin ee dalka Ireland kulankan ayaana qayb ka ah tartanka UEFA Nations League oo ay xulalku ciyaarayaan isagoo hadlay jimcihii shalay kabtanka Three Lions Harry Kane ayaana sheegay inuusan si buuxda uga soo bogsan guuldaradii 2-1 ee Spain ka soo gaartay finalkii Berlin ee 14 Luulyo Harry Kane ayaa u sheegay BBC Radio 5 Live inuu doonayo inuu soo ciyaaro muddo dheer isagoo dhiirigelin ka dhiganaya dhowr ciyaartoy waaweyn Cristiano Ronaldo, Luka Modric iyo Lionel Messi dhammaan saddexdan ciyaartoy waa kuwa garoomada ku jira waliba ayagoo mar hore dhaafay da'da 30 sano waxaan doonayaa inaan ciyaaro kubadda cagta inta ugu badan ee suurtagalka ah waxaan ciyaartoydaas u isticmaali doonaa waxaan ciyaartoydaas u isticmaalayaa dhiirigelin si aan u sameeyo arintaasi ayuu yiri kabtanka xulka qaranka Ingiriiska Harry Kane oo isagu sheegay in Ingiriisku uu doonayo inuu koob badan uu kula guuleysto koor inta uu ka fadhiisan ciyaaraha kubadda cagta dhinaca kale kulamo ayaa laga ciyaaray tartanka xiisaha badan ee UEFA Nations League iyadoo xulalku kulamo badan ay ka ciyaarayaan tartankan xalay kulamadii la ciyaaray hadii aan eegno Talyaaniga ayaa 3 gool waxa uu kaga adkaaday xulka qaranka Faransiiska ciyaar goolasha ay ku hormareen xulka qaranka Faransiiska uu dhaliyay goolka koowaad ciyaartoyda lagu magacaabo Barcola balse Talyaaniga ayaa jawaab degdeg ka bixiyay iyadoo 3 gool kaga adkaaday Faransiiska Belgiumka 3 gool Israel ay kaga adkaadeen ciyaar qayb ka ahayd groupka A tartanka xisaab badan ee UEFA Nations League group B kulamada laga ciyaaray waxa qayb ka ah xulka Norway oo hogaamiyo kabtanka Arsenal Martin Odegaard iyo wariyaanka naadiga Manchester City Erling Haaland waxay barbaro eber la dhaafi waayeen xulka qaranka Kazakhstan Austria iyo Slovenia hal ay ciyaartooda ku soo dhamaatay Montenegro 2-1 waxa kaga adkaatay Iceland halka Wales iyo Turkiga ciyaartooduna ay ku soo dhamaatay barbaro guulaan eber group C hadii aan eegno Botswana hal waxba Qubrus ay kaga adkaatay Romania 3 gool waxba waxay kaga adkaatay xulka qaranka Kosovo ciyaaraha caawa laga ciyaari doono tartankan waxa qayb ka ah Germany ayaa caawa la ciyaari doona Hungary ciyaar soo gali doonta 4 saac oo dhiman waana groupka A Netherlands iyo Bosnia Herzegovina oo groupka ku wada jira ayaa sidoo kale caawa 4 saac oo dhiman sarki doona groupka B hadii aan eegno Georgia iyo Czech ayaa ciyaari doona caawa 1 saac Ukraine caawa 4 saac oo dhiman Albania ayay la ciyaari doonta Ingiriiskuna caawa 1 saac oo la ciyaari doona xulka qaranka Ireland ciyaar soo gali doonta 1 saac habeenimo Finland iyo sidoo kale Greek oo iyaguna ku wada jira group B ayaa ciyaartooda waxay soo gali doontaa 4 saac oo dhiman group C hadii aan eegno Iceland waxay la ciyaari doontaa North Macedonia ciyaar kala 7 saac soo gali doonta Latvia iyo Armenia caawa 1 saac ayay wada ciyaari doonaan Moldova iyo Malta caawa 1 saac habeenimo ayay iyaguna ciyaartooda soo gali doontaa wana ciyaar qaybka groupka D kulamadan ayna saaxiibayaal caawa ilaa kala ciyaari doonaa tartanka xiisaha badan ee UEFA Nations League oo ay xulalku ay ciyaarayaan